jirtay dadkii in lagu tuntay tacadiye badan oo maartay xuquuqda aadanaha ka dhan ay dhaceen maxaabiis badan dadkii siyaasadda loo xirxiray ilaa hadda ay xabsida Baydhabo ay buuxaan waxaa jirtay in marka kuwii ugu dambeeyay ahaayeen dhalinyaro ilaa 6 aqoon-yahan oo iyagoo cabiraya ama taageeray hadalkii howlgallada uu Prime Minister Maxamed Xuseen Roble uu ka wado dalka ayaa rejiimkii meesha ka jiray oo lafta gareeni kooxdiisa ay xireen kuwaas oo muddo xabsiga Baydhabo ku jiray inkastoo qaarkood markii dambe la sii daayay waxaa jiray xataa dadka la xiray waxaa kamid ahaa maaragtay dad haween uur leh qaar umul ah qaar xabsida dhaxdooda ku dhalay intaasna waxaa loo beegsanayay waxay ahayd afkaarta iyo siyaasadda iyo aragtida ay qabaan ayay ahayd waxaa kaloo jiray xataa in la xiraynin ugaas ah oo maxaa uga qayb gashay calaamisaarkii Axmed Maxamed Salaan Axmedoobe ka qayb galay oo koonfur galbeed intuu ka tagay Jubbaland tagay oo calaamisaarkiis ka soo qayb galay markuu Baydhabo ka yimid 2 sano muddo ku dhow ama 1 sano iyo xoogaa xabsi ay ku hayeen marka dadkii ku noolaa koonfur galbeed waxay dhamiyeen cadaab runtii aad u weyn oo ay marsiyeen kooxahaasi maafiyada oo abaabulan marka xalay markii dadkii marka ay maqleen wasiirkii gaashaandhiga oo xildhibaan oo halkan u yimaaday oo lala doorasho la afduubto markay maqleen dadweynihii ayagoon iska warhin ayaa nin walba meeshiisii maartay ka soo kacay xaaladiina waxay ku sigatay inay dadkii dagaal meesha ka bilowdo oo dagaal sokeeyo ilaa markii dambe si degdeg ay wasiirkii ku soo daayaan ayagoo iska dhigaya maartay inaysan waxba ka warhin waan xaqiiqada waxay ahayd amar uu bixiyay ahayd halkan laga bixiyay oo farmaajo iyo fahad iyo lafta gareen iyo adeerkiis mahad ay bixiyeen ahayd oo la doonayay in dadka lagu sii niyad jabiyo inta yara u harsan dadka ujeedada loo weeraray wasiirka waxay ahayd dadka in niyadda laga dilo oo la bahdilo ilaa marka dambe is dhiibaan laakiin waxaan u sheegaynaa dadkeena dad is dhiibaya ma aha waa dad markaa mataqaanaa u taagan inay qadiyadahooda iyo xuquuqdooda asaasiga oo Ilaahay uu siiyay oo dastuurkan uu siiyay inay ilaashadaan dad u taagan weeyaan marka dad maartay in maalin walba la handado oo la weeraro oo wax sharciyada hadday shaqeyn weysay marka waxay tagaysaa nin walba in xoogiisa iyo shantiisa lagu kala baxo doctor haddaan ku weydiiyo wixii ka dambeeyay markii la doortay madaxweyne lafta gareen waxa soo baxay cabashada iyo dhaliisha guud ahaan maamulka loo jeedinayo dad badan baa la xiray kuwa badan baa sheegay in la caburiyay marka ujeedka laga leeyahay culayska dadka lagu hayo siyaasiyiinta iyo bulshada inteeda kaleba maxay tahay ujeedada laga leeyahay waxay tahay waxa weeyaan dadka la raba in la cabsi geliyo dadka waxa la rabaa in la cabsi geliyo ay markii dambe la gaarsiiyo marxalad inay xuquuqdii asaasiga ay lahaayeen ay ka baqaan waana habkaas waxa isticmaala shabaabka isticmaala yani dadka waa la cabsi gelinayaa qofka markii la cabsi geliyo oo nafsadiisa uu baqo marka dambe wuxuu ka tagayaa xataa wuxuu xaq u lahaa marka dhaqankaasi waxa laga soo minguuriyay dhaqankii shabaabka weeyaan waana dhaqan ay soo guuriyeen kooxda fahad iyo farmaajo ay keeneen oo dawladnimada hore waxaan ugu jirin dawladnimada Soomaaliya waxay ku dhisneed xorriyad in qofka aragtidiisa uu cabiro qofka uu maartay saxaafadu ay xor ahaato dadku ay xor ahaadaan tii marka waxaa bedeshay in la keeno fikir ah dadka waan caburin karnaa marka Axmed Godane oo suud soo xirtay yimid suudad soo xirtay oo maartay kuwaas marka waxay rabaan dadkii inay qarnigii 22 iyadoo la joogo inay dadkii caburiyaan oo dadkii ay u dhibaato geliyaan inay dadkii xuquuqdooda taana wax dhacaya ma aha marka ujeedada la leeyahay Baydhabo laga leeyahay waxay ahayd iyo guud ahaan siyaasadda nimankan u taala ayaa ahayd xamarna ku soo socotaa Baydhabo ka bilaabatay yani Jowhar ay ku xijiyeen Dhuusamareeb ay ku xijiyeen yani way isku dayeen Kismaayo u socon weeyday way isku dayeen Garow way isku dayeen way u socon weeyday xamar uu soo waqtiga ku yaraaday marka waxa ujeedada la leeyahay waxay tahay dadkii in yani la cabsi geliyo ilaa dadkii xuquuqdooda ay ka haraan uu isdhiibo qofkii koonfur galbeed marka ma la dhihi karaa waa meesha ugu badan dadka lagu cabsi geliyo ama lagu xiro gaar ahaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda marka la fiiriyo xaqiiqo way waa meesha ugu xun oo lagu tunto xuquuqda bini'aadamka oo lagu tunto xorriyadda bini'aadamka xorriyadda hadalka aan laga ogoleyn aysan joogin saxaafad madax bannaan wariyaasha meesha ugu badan oo sanadihii la soo dhaafay wariyaal lagu xiro weeyaan waxaa lagu xiray wariyaal maartay kor u dhaafaya 20 kor u dhaafaya lagu xiray ay ku jiraan wariyaal waaweyn oo u shaqeeya idaacadaha iyo wakaalada caalamiga ayaa la xiray markii dambana maartay la yiri maartay anaga nala shaqeeya fiiri qofku waa la cabsi gelinaya yani xabsiya la gelinaya waa la bahdilaya kadib waxa lagu khasbaya anaga nala shaqeeya yani ilaa marka qofkii uu magac ahaan uu joogo stationka goob joogu matala meesha uu jooga tusaale ahaan example laakiin wararkii meesha wixii ka dhacay waxba la dilaya waxba la xiraaya waxba la dhibaateynaya
ma ka fargaraynay sababtu maxay tahay wuxuu cabsanaya nafsadiisa xoogaa marka waxaa kireystay nimankan maartay farmaajo iyo tiimkiisa ayaa lacag siiya dadkii marka si xuquuqda yani xaqiiqda wadanka ka jirta si loo qariyo ayay waxaas u sameeyeen